soo dhawaada asxaabey faa'iidooyinka baraha bulshada iyo saameynta ay ku leeyihiin dhalinyarta hal iyo laba qodob ayaynu ka odhanaa maanta ku soo dhawaada barnaamijka waxaynu ku noolnahay dunia ay tiknoolajiyadu bedeshay habkay dadku wada xidhiidhaan shabakadaha bulshada ay fariimaha isku gudbiyaan sida Facebook, Twitter, MySpace iyo qaar kale oo lamid ah ayaa ah kuwa isku xidhan malaayiin qof oo dunida dacaladeeda kala jooga kuwa soo sahlay in si fudud loo wadaago loona ogaado waxyaabaha dunida ka socda ama ka dhaca sida inaad fariin ka dirto moobilkaaga ama aad warbixin ku qorto wajahada hore ku gaarka kuwa aad ugu jeceshahay baraha bulshada si aad asxaabtaada ugu sheegto xaaladaada uguna gudbiso aragtidaada ulana wadaagto waxyaabaha aad qabanayso noloshaada baraha bulshadu waxay u sahleen dadka inay telefoon u diraan ehelkooda ka fog taasoo lacag qiimaheedu aad u hooseeyo kaga baxdo dadkuna ay kaga raysteen shirkadihii isgaarsiinta oo iyagu qaadan jiray lacag qadarkeeda aad u sareyso marka la barbar dhigo internetka waxa intaa dheer baraha bulshadu waxay fududeeyeen inay barato asxaab badan oo dunida dacaladeeda kala jooga hadday noqoto asxaabtaada asxaabtooda iyo asxaabta kale oo meelaha dadku iskugu yimaadaan ku kulantaan maalinba maalinta ka dambaysa waxa badanaysa tirada dadka isticmaala baraha bulshada aad baana u sii kordhaysaa waxa taa ka maqnayn inay jirto casriyeyn lagu sameeyo baraha bulshada sida dadku u isticmaalaan si fudud ugala kulmaan waxyaabo cusub malaayiin qof ayaa hadda isticmaala waxaanay leeyihiin qolal u gaara oo ay asxaabtoodu kula wadaagaan muuqaallo sawirro qoraallo aragtiyo iyo waxyaabaha qabanayaan noloshooda oo dhan waxa jira dad badan oo dunida magac ku yeeshay baraha bulshada sida dad iyagu aan caan ahayn markii hore balse horumar ay ku sameeyeen habka ay wax u soo gudbinayaan baraha bulshada ay raaligelisay dad badan una sahashay inay ku xidhnaadaan barahooda kumanaan kun oo qof oo dad ah xiiseynayana isaga wax iyaguna jira boqolaal kun oo qof oo ku xidhan bogga baraha bulshada kuwaas oo la socda warbixinaha ay boggaas soo gudbinayaan sidoo kale waxa jira iyaguna boqolaal kale oo ku xidhan dad caan ka ah dunida oo la socda waxyaabaha ay dadkaas caanka ahi qabanayaan haddaba nimco waliba nusqaanteeda leedahay inkastoo baraha bulshadu ay saameyn ku yeesheen dhinac kasta oo nolosha dadka ah waxaan se eegaynaa dhanka arrimaha bulshada saameynta dhalinyarta Soomaali ahaan dhalinyarta Soomaalida ah ayaa ah kuwa ay saameysay dhibaatadani waxaanay ku lumeeyeen waqti badan oo ay ku fikir lahaayeen wax badan ay ku qabsan lahaayeen ama ay ku qaban lahaayeen ama ay kaga faa'iideysan lahaayeen hadday noqoto xilliyada ay shaqada ku jiraan iyo waqtiyada waxbarashada iyo xilliyada ay firaaqada hayaanba kuwaas oo arrimaha ku saabsan siyaasadda iyo waxyaabaha ay warbaahintu qortay yihiin waxyaabaha ay ku dhex milmeen dhalinyartu inta badan ay faalleeyaan balse wax maqan iyaguna inay buuxiyaan kaalintooda ugu dambeyntii daawade dhinaca wanaagsan ee faa'iidada leh uga faa'iideyso waqtigaaga qaaliga ah ee aad ku bixinayso isticmaalka internetka taladaas waa tala qiimo badan daawade intaas ayaynu ku soo koobaynaa barnaamijkeena maanta fadlan waxa dhiirgelin kaliya tan ugu filan inaad fiidowga like saarto siina share garayso wassalaamu calaykum